Wacan daawade, maadada xisaabta waxay ka mid tahay maadooyinka ay waxbarashada markii la joogo dadku aanay inta badan ayna xiiseynin. Sabab la xiriira in ay xalinteeda ay aad u dhib badan tahay, sidoo kaleetana ay tahay maado waqti dheer qaadanaysa in aad ku takhasusto, sidoo kaleetana ay tahay maado xalkeeda looga baahan yahay in si taxadar leh looga fikiro. Haddaba muuqaalka maanta waxaynu ku eegaynaa gabar xalisay xisaab la xalin waayay muddo 50 sano ah. Gabadh ku sugan dalka Mareykanka ayaa wax ka yar hal toddobaad waxay ku xalisay xisaab la xalin waayay muddo 50 sano ah. Lisa Brickilo waxa ay ku guda jirtay waxbarashadeeda PhD-da ee Jaamacadda Texas markii ay ka shaqaynaysay xisaabta madax xanuunka ku reebtay aqoon-yahano fara badan. Xisaabtan xalka loo waayay ayaa waxaa sanadii 1970kii curiyay aqoon-yahan maadada xisaabta ah oo u dhashay dalka Ingiriiska kaasi oo la yiraahdo John Harton. Balse Lisa ayaa markii ugu horeysay ay maqashay xisaabtan xilli ay ku sugnayday kulan aqoon isweydaarsi ah oo ay ka qayb gashay sanadii 2018. Xisaabta ay xalisay Lisa ayaa horaantii sanadka waxa lagu daabacay joornaal ka faallooda arrimaha xisaabaadka iyo sayniska, waxaana noqotay professor ku-xigeenka Jaamacadda Teknolojiyadda ee Massachusetts. Jahwareerka ka dhashay in la xaliyo xisaabtan waxay ahayd arrin muddo taagneed. Aqoon-yahano ku xeel dheer dhanka maadada xisaabta kuwaasi oo ku guuldareystay xalinteeda ayaa jira, ayuu yiri Javier Armoya oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Autónoma de Madrid, xubin ka ah macadka xisaabaadka iyo sayniska ee gudaha dalka Spain. Xisaabta waxaa loo adeegsadaa qaybo kala duwan oo ka tirsan cilmiga sayniska. Waxay saynisyahanadu u isticmaalaan in ay ku darsaan walxaha qaar sida inay kula socdaan isbedelada dhaqaale ee suuqyada, muuqaalada maadada DNA-da iyo waxyaabo kaleeto. Xisaabtan ay xalisay gabadha ayaa lagu magacaabaa Conway. Ninka curiyay xisaabtan ee la yiraahdo John Horte Conway oo isagu loogu magac daray waxa bishii Abriil ee sanadii 2018 uu u dhintay cudurka COVID-19 isagoo markaasi ahaa 82 sano jir. Ninkan ka soo jeeda Liverpool waxa uu ahaa aqoon-yahan caan ku ah oo si weyn loogu qadariyo maadada xisaabta, waxaana bara ka soo noqday jaamacadaha caanka ah ee dunida sida Cambridge iyo sidoo kaleeto Brighton. Su'aasha la isweydiinaya waxa ay tahay sidee ugu suura gashay in gabadhani dhawaan ka soo qalin jabisay jaamacad in ay xal u hesho xisaabtan caanka ah ee la dhaqaajin waaye. Lisa waxay sheegtay in xisaabta ay xalisay markii ay fikir iyo sidoo kaleeto dadaal fara badan ay gelisay. Maalinkii kama aanan shaqayn karin xisaabta sababtoo ah uma arkaynin inay tahay xisaab dhab ah oo adag, ayay u sheegtay jariirada Quanta. Waxay ahayd oo kale sida aniga oo ka shaqaynaya casharada layliga ah markaa waxaan tagay guriga waxaana sameeyay xisaabta, ayay tiri mar ay warbaahinta la hadlaysay gabadhan. Gabadha xisaabtan xalisay ee Lisa waxay ku dhalatay degmada Maine oo ah deegaan miyi ah oo ku yaala gudaha dalka Mareykanka, waxayna maadada xisaabta ka baratay College-ka Boston. Sanadii 2013 waxay waxbarasho ka bilowday kulliyadda qaranka ee sayniska ee dalka Mareykanka. Markii ay bilaabaysay kulliyadan waxba kalama aysan socon cilmiga ku saabsan xujo furka xisaabtan iyo sidoo kaleeto ma aysan lahayn tababar dhanka xisaabta ah marka laga reebo xisaabta linear algebra oo ay taqaanay oo kaliya. Waxaa sidaas wargeyska Boston u sheegay Elyson Kerbsen oo ka mid ah macallimiintii hore gabadhan wax u soo baray. Waxaa intii uu raaciyay toddobaad gudihiisa waxay ku guuleysatay xalinta ay ku guuldareysteen xisaabo fara badan oo ay xalin waayeen ardayda ay wax la baranaysay, taasi oo ay ku mutaysatay in ay ka tilmaamaato college-ka. Guusha ay xisaabta ka gaartay Lisa waxay dhiirigelisay oo horseed u noqotay in haween fara badan oo iyada asaageeda ah ay bartaan culuumta kala duwan oo ugu horeyso cilmiga xisaabta. Waxda arrimaha shaqaalaysiinta qaabilsan ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in haweenka ka shaqeeyo shaqooyinka xisaabta iyo kombiyuutarada ay bulshada dalkaasi ay ka yihiin 26%. Gabadhan ayaa iba furtay oo bilowday xalinta xisaabtan muddada 50 sano ah la xalin waayay. Ninka bilaabay xisaabtan oo lagu magacaabo John Horton Conway oo isagu ah shakhsiga bilaabay sidoo kaleeto looguna magac daray xisaabta ayaa isagu horey xujadan u bilaabay sanadii markuu ahaa 1970. Wixii intaasi ka dambeeyay khubarada cilmiga xisaabta iyo sidoo kaleeto cilmiga sayniska waa ay xalin waayeen muddo 50 sano ah oo laga soo wareegay intii xisaabtaasi ay jirtay. Gabadhaas ayaana si kadis ah
xisaabtani ku xallisay waxayna noqotay haweeney dunida ka tilmaaman. Maanta haweeneydan waxa ay ka mid tahay khubarada dhanka xisaabta looga dambeeyo ee caalamka ku nool, waxayna gabadhan oo haatan da'deedu ay weli ay tahay meel dhexaad ay ka mid tahay dadka lagu qadariyo marka laga hadlayo culumta dhanka xisaabta ah. Waxay haatan Lisa qayb ay ka tahay dadka ku nool dalka Mareykanka ee cilmiga xisaabaadka looga dambeeyo, iyadoo sidoo kaleeto ah tababar ama sidoo kaleeto professor ku xigeen gudaha dalka Mareykanka. Gabadhan Lisa ayaana 2019 waxa ay ku guuleysatay in ay noqoto gabadha ugu caqliga badan dunida oo ay kaalintaasi ay ku qabsatay kadib xalinteedii xisaabta ay muddada 50 sano ah la xalli waayay. Xisaabtan gabadhan ay xallisay ayaa la sheegay in ay tahay xisaabtii ugu adkayday ee abid dunida la keeno. Lisa haddeertaan waxa ay wax ka dhigtaa oo ay macallimad ay ka tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka, iyada oo haatan ah gabadha keliya ee lagu ixtiraamo gudaha dalka Mareykanka in ay tahay mathematicist ama sidoo kaleetoba xisaabyahan loogu yeero. Waxayna inta badan shuruucda xisaabaadka ay qayb ka tahay shakhsiyaadka dunida ku nool ee looga dambeeyo. Lisa Maria Bricquello ayaana gabadhan lagu magacaabaa, waxayna xalkeeda ay heshay oo ay haatanba ay ku suntan tahay in ay tahay gabadha keliya ay xallin karta xisaab waliba oo dunida taala. Waxayna xisaabtan ay qayb ka aheeday xisaabaadkii ugu dheeraa ee dunida inta la rumaysan yahay la xalliyo, waqtigeedana ay aad u dheeraato ama xalliskeedaba aad u dheeraado. Waxayna gabadhan ay ku mutaysatay abaalmarino fara badan oo ay ku guuleysatay tan iyo markii ay bilowday xalinta xisaabtan ay gabadha ay xallisay 50 sano kadib ayayna ku guuleysatay in ay gabadhani ay furto xujo la dhigay sanadii 1970 iyadoo ninkii xujadan dhigay uu geeriyooday Abriil sanadii 2018 markaasi uu ahaa 82 sano jir, isaga oo lagu magacaabo John Horton Conway. Xisaabtan wax lagu magacaabaa Conway ama xisaabtan oo lagu yeeraaba ninkaasi magaciisa maadaama uu yahay shakhsiga ugu horeeyay ee xisaabtaasi bilaaba markii xisaabtaasi ay ahayd sanadii 1970. Dadka inta badan waxbarta ama ardayda waxbarta ayaa inta badan aanan xiiseynin barashada maadada xisaabta sabab la xiriira in ay maadadu ay qayb ka tahay maadooyinka u baahan in la geliyo waqti badan iyo sidoo kaleeto maskax badan, maadaama ay maadadu ay tahay maado ka adag maadooyinka kaleeto sida ay sheegaan ardayda waxbarata, oo ay tahay maado u baahan fikir waqti dheer iyo sidoo kaleeto in aad looga taxadiro waxyaabaha la sameynayo, maadaama sidoo kale xalinta xisaabaadka qaar ayaa la sheegaa in ay qaadato in waqti badan lagu xalliyo, iyadoo xisaabaha qaarkood ay qaataan in buugga kala barba ay kaa buuxiyaan marmarka qaar oo aad xalinayso. Maadooyinka ugu dhibka badan ee la barta ayayna xisaabtu kow ay ka tahay oo ay qayb ay ka tahay. Xisaabta ayayna dadku jeclayn, balse waxa ay ka mid tahay maadooyinka haddii aad barato waxyaabo fara badan kaa anfici doona.